wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idiin haayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena habeenimada waxaa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay inay ciidamada booliska iyo guud ahaan afarta ciidan ee dawladda ay mushahar kordhin u sameynayso hadaba mushaharka iyo gunnada iyo sidoo kale raashinka ciidamada loo kordhinayo intee ayuu leeyahay qaab noocee ah ayay u maraysaa wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya warbixinteena ay ku daawan doontaan dhinaca kale maamulka Soomaaliland oo qarka u saaran oo ku soo biiray dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo siyaasadda ay la ciyaartay dawladda federaalka ee Soomaaliya xiriirka ay wada xiriireen wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda dawladda China Taiwan iyo Somaliland oo qarka u saaran in ay ku biiraan dawladaha China iyo Soomaaliya barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan dhinaca kale dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka hadashay muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku xayirmay dalka Ukraine oo dib loogu soo celinay qaarkood dalka halka ku kalena dalal kamid ah kuwa Yurub sida Slovakia Poland iyo dalal kale oo kamid yahay Romania loo geyn doono barnaamijkeena ayaan ku qaada dhigi doonaa fashilka ku yimid ra'iisul wasaare Roble iyo arrimaha doorashooyinka sidoo kale magaalada Boosaaso iyo sidoo kale Garbaharey magaalada Gaalkacyo doorashooyinkii ugu dambeeyay iyo halkay waxba marayaan qaar kamid ah maamulka ugu sareeya arrimaha doorashooyinka heer dawlad goboleed ee Puntland oo isxasay sababta keentay fashilka Saciidan iyo inay isxasilaan guddiga doorashooyinka qaranka iyo sidoo kale kuwa heer federaal ee maamulka saameynta ay ku yeelatay magaalada Boosaaso doorashada lagu wado inay ka dhacdo halka ay marayso xaaladdu iyo sidoo kale xaaladda Somaliland warbixinadoodii ugu dambeeyay iyo update-ka ayaan daawada kula wadaagi doonaa dagaalka Ruushia iyo Ukraine halka uu marayo dagaalka oo maalintii lixaad soconaya dunidana saameeyay Ruushka oo la soo baxay dabaabaad iyo sidoo kale nuclear oo laga cabsi qabo inuu u isticmaalo dawladda aadka u yar ee Ukraine oo 3 maalin ku qabsanayahay magaalada Kyiv xarunta dawladda Ukraine Ethiopia oo wararkeedu hadda badnaanka u soo baxayaan qaar kamid ah gobolada oo la wareegtay dawladdu dagaalka oo faraha loo guftay iyo warbixinadii ugu dambeeyay ayaan daawado kula wadaagi doonaa niyadjabka ku dhacay siyaasiyiinta Soomaalida iyo habka ay u dimacsan yihiin in loo maamulo doorashada baaqi Mareykanka iyo sidoo kale cagjuleynta dawladaha Yurub beesha caalamka qaramada midoobay iyo warar sheegaya in madaxweyne Farmaajo gacanta loo soo gali doono arrimaha doorashada ayaan daawado kula wadaagi doonaa qodobada ay ku kala wixii badan ayaan daawado kula wadaagi doonaa haddii ay tahay markooda soo baqta channelkeena calanka TV subscribe oo furo gambalka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena mahadsanid aan ku bilaabay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay inay mushahar kordhin u sameynayso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale kuwa booliska nabad sugidda iyo ciidanka kale ee asluubta wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa la hadlay ciidamada boolis ah oo ku sugan magaalada Muqdisho xilli loo mahadcelinayay ciidamada booliska ee ammaanka dalka xaqiijintiisa ku howlan wasiirka ayaa sheegay in ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa booliska la sameynayo mushahar kordhin maadaama ay yihiin ciidamada ugu hawsha badan oo in badan la dagaalama argagixisada sidoo kalena ammaanka caasimadda iyo qayb kamid ah dalka suga waxa uu sheegay in mushaharka loo kordhin doono sidoo kale raashinka iyo gunnadana ciidamada kordhin loo sameynayo oo hadda socdo qorshuhu ballan ayuuna ku qaaday wasiirku in arinta ay tahay midaan afka ahayn oo dhab ah dhawaana ay arki doonaan ma uusan cayimin mushaaraadka iyo sidoo kale lacagaha kale ee loo kordhinayo ciidamada balse waa ballan uu qaaday wasiirku sida uu isagu afkiisa ka sheegay hadaba wasiir Beyle ayaa inta uu joogay ciidamada qaranka waxa loo kordhiyay in badan mushaaraadka iyagoona hadda ku jira dalalka Afrika kuwooda ugu mushaaraadka badan marka la fiiriyo kuwa dariska la Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa qaarkood wadamadooda ee nabad ilaalinta u joogaan Ethiopia Kenya Uganda iyo sidoo kale dalal badan oo ay ka mid tahay Nigeria ayay ka lacag badan yihiin kuwa Soomaaliya South Africa Masar Algeria iyo dalal kale oo kaliya ah ayaa ka ciidamo mushaar badan marka loo eego iyadoo Soomaaliya ay ku jirto xaaladii ugu adkeed xaalad dagaal dalka qaar la haysto maamul goboleed ay u kala go'an yihiin ayay hadana ciidamadooda kuwa dunida ama Afrikaba ay ka mid yihiin kuwa ugu mushaaraadka badan waana waxa madaxweyne Farmaajo ay ku dhaliili waayeen beesha caalamka isagoo si hufnaan ah ciidamada mushaarkooda u siiya madaxweyne Farmaajo waa shakhsiga kaliya ee aaminsan in la isticmaalo awood ciidan oo laga gudbo dawladaha Afrika ee ciidamada la weydiisanayo waana sababta ciidamada dawladdu ay inta badan ula dagaalaan ururka
ururka al-shabaab halkay ka gaabsadaan dalalka loo keenay nabad ilaalinta Soomaaliya. dhinaca kale mucaaradka oo waagu ku bariyay markii doorashada ay ku soo dhawaatay iyo madaxweyne Farmaajo oo xildhibaano badan gacanta gashtay sidoo kalena xarun gooni ah u sameystay halkaana kula tacaalaya xildhibaanadaasi isagoona ballanqaadyo iyo ballamo ay kala galeen isaga iyo xildhibaanada gacanta ugu jira. mucaaradka oo weysan qaab u joojiyaan doorashada qorshayaal cusub ee wadaan ayaana la sheegayaa inay u hirgeli lahaayeen ilaa ay hadda qaarkood oo ka cabsanaya in xayiraad kale la saaro dagaal ay ka qorsheynayaan magaalada Muqdisho awgood. xubnihii mucaaradka hubisnaa ahaa oo ahlu sunno iyo sidoo kale kooxdii Hiiraan ay ku fashilmeen in la tacaamulaan Mahad Salaad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo la helay cod uu u duubay ahlu sunno xilli uu doonayay inuu la heshiiyo maadaama uu qorqor ka helay kursiga sidaana ay dagaal ugu dhuftaan Gurceel oo la sheegay habeenadii dambe inay u soo dhawaadeen. haddaba mucaaradku wadorba ay isku dayayaa inuu u maro sidii uu markaasi u hor istaagi lahaa madaxweyne Farmaajo inuu doorasho ka qabto gudaha dalka. qorshaha mucaaradka ayaana ah in madaxweyne Farmaajo lagu eedeeyo inuu ku fashilmo doorashooyinka sidaas dalka qalalaasa loo geliyo. dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland Caynaashe ayaa xilka iska casilay kadib markii uu sheegay in Saciid Dani uu doonayo inuu si xoog ah xildhibaano ku soo saarto iyadoo sidoo kale uu faraha kala bixida yahay arrimaha doorashooyinka maamulka Puntland halka odayaasha dhaqanka iyo shacabkuna ay arrintaasi diidan yihiin. waxaa la sheegay magaalada Boosaaso inuu ka hadlayo gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland Caynaashe iscasilaadiisa ayuu ku wargeliyay guddiga doorashooyinka qaranka iyo ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo inaysan Puntland ka dhici karin wax doorasho ah inta uu Saciid Dani arrimaha doorashooyinka faraha kula jiro. iscasilaadiisa ayaa imaatay xilli khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyo Caynaashe iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani oo doonayay inuu si qasab ah xildhibaano uga soo saaro magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in dadka shacabka ah ee ku sugan dalka Ukraine oo dagaalku ku qabsaday ay aadi karaan dalalka Slovakia, Romania, Poland iyo kuwo kale oo ku xusay warqad uu soo saaray. waxaana laga codsaday dalalkaasi iyo sidoo kale kuwa dariska la ah dalka Ukraine in muwaadiniinta Soomaaliyeed si weyn loo soo dhaweeyo oo la ilaaliyo xeerarka caalamiga ah maadaama dadku ay yihiin dad qaxooti ah oo nafsadooda la baxsanaya. dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in safaaradaha Jarmalka iyo Berlin ay aadaan maadaama ay dowladda federaalka kala hadashay kuwaasna lagu badbaadin karo halkaasna laga daaburi karo. dad badan oo shacab Soomaaliyeed ah ayaa ku sugan dalalkaasi iyagoona halka u tagay waxbarasho iyo arrimo kale oo iyaga qaas u ah balse dowladda federaalka ayaa ku guuleysanaysa inay daabusho dhowr boqol oo Soomaali ah oo ku sugan dalka Ukraine oo hadda ku jira maalintii saddexaad dagaal culusna uu ku garaacayo Vladimir Putin madaxweynaha dalka Russia. haddaba halka waxay nooga wararkeena habeenimo haddii ay tahay markii soo booqatay channelkeena Calanka TV subscribe oo furo gambeelka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyada